xildhibaanada guddida baarlamaanka Somaliland oo safar shaqo ku mariyay gobolada Saaxil iyo Togdheer ayaa kulan la qaatay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco. kulankan oo saacado badan qaatay markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada guddida dhaqaalaha baarlamaanka Somaliland. waxa weeyaan sidan gudoomiyuhu sheegay waxaan soo marnay berberan joognay maanta halka baan joognaa labadaba si wanaagsan oo xaqeeqo leh oo sharaf leh baan loo soo dhaweeyay xafiisyada dawladda badankooda waa wada maray markaan u soo noqdo tan Togdheer dawladda hoose saaka waan la kulnay waqti dheer baan la qaadanay cabasho badan bay sheegteen waxaana ka muuqda Burco ama Togdheer ama magaalada Burco la yiraahdo dayac fara badan baa ka muuqda runtii la doonayo caasimada labaadna waa lagu sheegaa haddana waa dayacanto aad bay dayacantaasha weydiinaysa markaad leedahay ka hadlaysana dayacan ku sheegay ay ka mid tahay annaka wixii aan aragnay wixii noo muuqday golahan geenina waana ka hadlaynaa waana ka doodaynaa insha Allah xukuumaddu insha Allah way nala shaqeynaysaa waana la ogaan doontaa marka wixii indhaha igu qabteen iyo wixii naloo sheegayba waanu ognaa waanu buuxinaa anna horeba awal baanu ogaa hadda waxaanu joognaa Burco xalay baanu soo galnay nagoo guddiga dhaqaalaha qayb ka mid ah ay kormeer ku soo gaala bixisay magaalada Berbera ama gobolka Saaxil iyo gobolka Burco Togdheer ujeedada socdaalkeeguna wuxuu ahaa in aanu u kuur galno xaaladaha maaliyadeed ilaha dhaqaalaha iyo dakhliga dalka soo gala oo 3 bilood maadaama ay dhamaatay u baahannahay inaan warbixin ka helno ka bacdina warbixintaas doorka dambe saddex biloodka dambe ama ka ugu dambeeya inaan kormeer labaad ku sameeyno si aan u ogaano in adroskii miisaaniyadda la gaaray heerkii la rabay iyo in hoos laga dhacay iyo asbaabaha warbixinaha la siinayaana waxa weeye Burco iyo ama gobolka Togdheer iyo gobolka Saaxil inay hawlihii qaranku ay si fiican u socdaan oo aan wax dhibaato ah ayna jirin runtii maanta waxa weeye halkan shir baanu la qaadanay maayarka magaalada iyo xildhibaanada deegaanka Burco waxay ay kula hadleen gudoomiyahana way noo sheegeen halkana wixii tabasha iyo waxyaabaha jira oo dhan wayna soo gaarsiiyeen anaguna waanu ka qaadnay waananu gaarsiinaynaa runtii waxay xaq u leeyihiin waa helayaan hadda imika mawduuca ugu muhiimsan ee maanta socdaaba wuxuu yahay xeerkii 2002 2002 xeerkii la soo saaray ee gobolada iyo degmooyinka iyo muxuu hor yaalla golaha wakiilada sidaad ula socotaan dood adag weeye xildhibaanadu oo dhan way ka qayb galeen sababtoo ah wax saameyn guud ku leh dalka oo dhan maadaama gobolada iyo degmooyinkii laga hadlayo marka nin walba sidoo u yiri iyaga laftoodu fikirkooda xildhibaanadii deegaamadan ka soo jeeday baa xambaarsan waana waxa weeye marka la isku dubarido wali doodii way socotaa sida nagu soo gaadhay hadda la gabagabeeyana waa la isku guraya isku gurkaasna wuxuu keenayaa in wax badan oo xildhibaanadu ay taageereen la tixgeliyo Burco waxaan ku bogaadinaynaa oo kale khudrad aan wadanka u ooleen baanu aragnay oo way isku filaatay way dhoofinaysaaba marka halka ka wada baan leenahay halkii wixii Itoobiya inooga iman jiray ama Muqdisho inooga iman jiray Burco ka baxan maanta Soomaaliland ogaada marka waxaan leenahay wasaaradda beeraha wali waxaan leenahay aad iyo aad gacan loo siiyo oo dadka reer Burco ee dhulkii beertay Togdheer guud ahaan in waxa la qabtaa baan leenahay Cabdi Qani Baafo warbaahinta STN magaalada Burco.